جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى weli ma maqashay in kabala'aanta ama cagaagnaanta oo lagu socda ay jidhkeenna u leedahay muhiimad caafimaad oo aan lagu soo koobi karin maqaal iyo laba toona in badan oo khubarada caafimaadka ka mid ah waxay sheegeen in kabala'aanta ama cagaagnaanta oo lagu socda ay jidhkeenna u leedahay muhiimad caafimaad oo aan xad lahayn waxay sheegeen in baabacooyinka cagaheennu ay dhulka ka soo nuugaan walxo iyo macdano uu jidhkeennu si joogta ah ugu baahan yahay waxay sheegeen caafimaadka laga helay inay ka mid tahay caafimaadka maskaxda dheelitirnaanta jidhka qaabka korriinka carruurta oo ay ka caawiso awoodda iyo dhererka koboca dhiigga wareega iyo habsami u shaqaynta unugyada dhiigga quruxda iyo heemaalka guud ee qofka caafimaad qabka addimada ama cagaha yaraynta dhiigkarka iyo xanuuno kale oo tiro badan daawade waxaa xusid mudan in nabigeeni maxamed ah calayhi salaatu wasalaam saxaabada uu faray in mararka qaarkood ay kabala'aan ku socdaan waxay dhakhaatiirtu ku taliyeen in qofku haddii uu awoodo maalintii uu kabala'aan ciidda ah ku socdo saacad barhkeed ama saacadba iyadoo meesha uu ku soconaya ay tahay ciidda isla markaana ay tahay meel ku habboon laakiin aanay ahayn inuu ku socdo sibirhka iyo marmarka iyo wixii la midka